kibirka isla weynanka iyo qabka qalbigaaga inuu ku jiro ama dhaqankaagaba uu ka mid yahay inaad xaq diido oo iskala weynaato adoomada ilaahayna aad yastood xaqirto oo hoos u fiiriso tilmaanta haddaad ku tilmaaman tahayna wacdiga iyo waanadu ku anfici mayso quraankuna wax kugu biirin maayo الله قرآن كريم كله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض آياتها يجوحن كله حين يوم كدويا كوا دولك دحدي سإسكو كبريو إسلوي وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها مر هدين لقو الليحيو آيات كستهدين لقو تصه مر مينيس شدك توصن قادم آيات jidka xun markay arkaan waa qaadayaan sababtu maxay tahay ayadahaygii bay beeniyeen buu alla yiri waana moogaadeen oo wayba ka damba kama ay lahaba qaafiliin wax sidaas daraadeed haddaad mutakabbirtaadu isla weyn tahay isla weynidaasi waxay ka hortagaysaa oo diidaysaa intifaacsiga waxa kamid ah jahliga iyo aqoon darrada inaadan fahmayninba waxa lagu leeyahay wuxuu quraanku ka hadlaya ma fahmaysid inaad fahantana uma jeedidba marba hadaadan fahmaynin kuma saameynayo rabbigan tabaaraka wa taala wuxuu yiri isagoo arinta tilmaamaya wa idha ma unzilat surah markii la soo dejiyo quraanka kamida nadara ba'dhum ila ba'd wa isfirinaya markaas waxay leeyahay hal yaraakum min ahad warmid idin kamida ma arkay thumma insarafu كدبنا ويلاحنيا ويكدوميا صرف الله قلوبهم بالله تبارك وتعالى قلوا قلوب تودا الله ليحيي او قرانك اني انتفاع السلام بو الله كليحيي يوانبي وعدك يا اياتك محل ليحيي بانهم قوم لا يفقهون واددا وحبه فهمين بالله تبارك وتعالى وحبه ما فهميا هذا مركب فهمين شروطنا وحن كسو شيغني قرآنك معنيه سينات فهمته او قصده او وقتك بحسه موانعنا وحا كميده جهلك ان القرآن كبجهلك كسغنته ما انتفاع سنيسن مر انتفاع عيسى سيدي للربي كوما سامينه وحا كميده موانعنا ايضا النفاق قلبك اني منافق نما كاغا جيرت الهي تبارك وتعالى قرآنك سوى نور قرآنك هو شرف قرآنك وحيي رب وهذا الكيسي لما دغو لما نجلي انتفاع عيسى قلبي وسخيسان والنفاق يا شك يا كفر كجيرو لجلين ما يوم السامينيو تو ان نفاق الله يسارو قال لماذا لا يسارو ايمانك لو بدلو مركز قرآنك انفعيا الله تبارك وتعالى اسقو معناها تلمامه وحو يري واذا ما انزلت سوره مركي لا سو دجيو فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا وحيدها ورميدكين نبي أسيادي سي إيمان قرآن كسودك إيمانتا يا وحك السياسة دي الله وحيد فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا ذاتك مؤمنين تا إيمان كلا إيمان كوديبي مدكلا أقسيادين ين آياتك وأما الذين في قلوبهم مرض كوس قلوب تكجرا oo qalbigooda jiradu ku jirto munaafiqnimadu ku jirto fazadathum rijsan ila rijsihim xumaanti qalbigooda ku jirtay bay mid kale aayadku ugu siyaadinayaan xumaanti ba mid kale ugu siyaadsanayaan walu fiirso hada min ajaibi alquran alkarim daawadu cudurka waxay daawo ka tahay markii saalix uu yahay jirku inuu qaato laakiin marbay daawadiiba dadka dilaysaa oo quraanki daawada ahay qulubta daaweyn lahay cudurrada daaweyn laha ayagii cudur buu si kordhinaya sababtu wax weey waa halaysan waa kharibay sidaas daraadeed qalbigaaga haday munaafiqnimo ku jirtana waanadi iyo wacdigi inaad intifaacsato ku diidaya waxa kamida az-zayq wal mayl in qalbigaagu leexasha ku jirto maylki zayqa wax la yiraahdaa adoomada qaar kamida rabbi tabaaraka wa taala uu ku ciqaabayo markii adoonka la kari waayo oo uu leexdo oo jidka toosan lagu kari waayo ayaa ilaahay tabaaraka wa taala wuxuu ku ciqaabaa in isaga dhan qalbigiisa la leexiyo
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم markay leexdeen buu ilaahay quluubtoodii leexiyay dadka qaar waxa jira qalbigiisu leexsay oo si toosan oo wanaagsan ba wax uma fahmay meel xun buu wax ka raadiyaa saas daradeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacaala isagoo qolyaha tilmaamaya wuxuu yiri aayaadka rabbi tabaaraka wa tacaala quraanka kariimka baa laba loo qaybiyay aayaad muhkamaad ah iyo kuwa mutashaabihaad kuwa qalbigooda leexashadu ku jirtay laabku kuwaasi quraanka qaybtiisa muhkamkee banaanka yaala iska cad ma raacaya maxay raadinayaan mutashaabiha macnihiisu dhehgalshan yahay ayay raadinayaan oo kaasay dabagalgalayaan si ay fitna iyagoo raadinayaan ama ta'wiil raadinayaan sidaas daraadeed meel bay wax ka raadinayaan waxaan la garanaynin way raadinayaan oo waa fitna doon quraanka bay fitna ka raadinayaan aayaadkiisa cadcada iyo sharaa'icdiisa cadcadayd intay ka leexdaan bay kuwa mutashaabih oo macnahoodu qarsoon yahay ama aan la gaari karin bay wax ka dhex raadinayaan leesh لأن قلبي قد زيغ يلي حشا كجرتا هذه قلبي قاقا مركز زيغ يلي حشا كجرتنا قرآنك كوان في عمايو ملا انتفاع سنس وحكم ذا إن قلبي قاقو إنكاقو قلبي إنكيك إنو كقرعو قلبي قاقو مدبعو منا عفصدو منا تشلعو منا الساموبو وحكستها طيب عن آيات كو هو وين هذه أو أركام اللغو أخريو سامين ملك عذر كاسي قسوة القلب هدوك قرعنا سقنا ومانع هور استاغي إن قرآنك كأنفعه الله تبارك وتعالى ميلا آيات كيسا كمذو كتل مامي فقل نضربه ببعضها ريبني إسرائيل الله تبارك وتعالى آيات وين بوهر كيني أو نافكي سعي مركي محوء هاي أمركي لسي قاتل ميت كي دنتي ayaa soo noolaado hortooda soo istaagay meed lagu muransanaa yaa dilay ayaa ilaahay intuu soo nooliyo qabrigii ka soo saaray baa hortooda la keenay maxaa hortooda loo keenay inay kuwaana qaataan oo wax ku qaataan mase ku qaateen way su'aashu jawaabtu waa maya maxay aayadaas cad ee banaanka taala wax ugu qaadan waayeen sababtu waxa weeye quluubtooda ingegnayd waay qasad quluubukum min ba'di dalik آيات ربي تبارك وتعالى ميلك لو كمذا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم قسوة القلب هي أذيك قلبك كتشرا يسقنا ومانع وحكم ذا إن آت تهيدتك هوضو ذراعة هو الراعة وحلي هذا وادتك النفط وضصيت عشاء وسكت وقرا ور الله ديدي نفط إذا جعل ور الله النعب نفط إذا جعل بل هوض إذا بل ود إذا محوها داعب وأح وحي نفتي سو أمرتو قاتا وحي ربي أمرين واتشبيا وحي نفتي سو ربطو يالا وحي ربي الريبين وادر درا حدودي سوات اللابا هذا هو الراعة هاي إلهي تبارك وتعالى دقهاga iyo aragaagana waa qufule waa daboolaya qalbigaagana waa la xidhaya waxba iska ka bedeli maayaan marka rabbi tabaaraka wa taala wuxuu ara'ayta man ittakhadha ilaha